wararka aanu ka helayno degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa ku soo waramaya in ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya ay israasaaseen ku dhaxmaray xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ee gobolkaasi. Sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Shabeelle u sheegay in israasaaseentan ay timid kadib markii ciidanka Kenya la arkay iyagoo cabiranaya dhulka Soomaaliya isla markaana u muuqday sida uu sarkaalkani tilmaamay kuwa doonaya in dhul ballaarsi halkaas ay ka sameystaan. Waxaana uu qeexay sarkaalkan ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ee Gedo in halkaas israasaaseen ka bilaabatay dibna looga bixiyay ciidankii ku sugnaa ee ciidda Soomaaliya isagoona carabka ku dhuftay in mar kale ay ku soo laabteen halkaas xiisad kalena ay ka dhalatay inkastoo khasaare aanu sheegin. meel aan dhulkooda ahayn inay goosanayaan camal ama ay wax ku darsanayaan baa noo muuqatay haddii aysan iyadoo wax la soo ay macnaha dhulkanayaan la garan yaan hadhow markhaati iyo goobjoog iyadoon looga ahayn ay tirada halkaana meesheedii ahayd in dhulka u qabtaysanaysa intaasaan u dareennaa bacdi way dalbadeen haddana mar labaad ay soo noqdeen mar labaadan ka bixinay oo galabkii haddana ah marka saas aboowaye wax dhulasiini waxaad waddaa in ay wax boogahayaan oo ku dhuumanhayaan oo ay dhulka boogahayaan baad mooda waa isku maandhaafnay laakiin waxaad dagaal ah oo saasakaminka dhicin ma garata ka wareegaan ku niri xuduudka baneeye oo laysugu imaado Soomaaliya iyo Kenya waxay isugu imaadeen haddana wax gaar ah adinka kaligeen idin aan u aragnaa inay tahay inay dhexaysan ma aragnaa kabacdina waxay dhaheen waa yahay haddana kulay waan ka hordhowrayna hadda maanta kusoo noqdaan waa arkaynaa insha allahu tacaala. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xumaanayay arrimaha diblomaasiyadda ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya inkastoo maalin ka hor labada madaxweyne heshiisyo kala duwan ay ku kala saxiixdeen magaalada Nairobi ee waddanka Kenya.